daawadayaal fiidiyooga yar aad daawanaysaa runtii waa caruur yaryar oo isasiidaya. runtii caruurtu markii ay yaryar yihiin ayay waxay isgaarsiiyaan dhaawacyo aad iyo aad u halis ah. runtii lagama fakaro dhaawacaasi hadhowtii markuu inanka ama wiilka uu weynaado muxuu gaarsiin karayaa. runtii inankaas aa arkaysaan waa inan yar oo aad iyo aad u qalqaali u dhib badan. runtii waxaa laga celcelinayaa inan yar oo kasoo horjeeda gurigooda guri, marka runtii aad iyo aad ayuu ninkaa u shiidayaa, balse ilaahay amarkii wax dhibaataa muusan gaarsiinin. runtii aad iyo aad ayay u dadaashay inantay ka weyni celcelisaa mar walba, balse intaa ma xakameyn karto waayo waa laba inan oo ka yaryar. runtii mid markay celisaa ayaa midka kale ka baxsadaa. runtii dhagax ayuu qaadanayaa iminka kushiidayaa inantii. runtii taalina uma wanaagsana haduu dhagaxa meel xun ama isha ama madaxa ugu dhan. runtii waa dhaawac aad iyo aad u halisa oo runtii markii gabadha weynaato ay ka shalaynayso oo hooyadii oranayso way dhaawac xagee kasoo gaaray kasoo gaaray adigoo yar ayaa inan kasoo horjeeda beriba maalmaha kamid ah ayuu ku shiiday kadibna dhaawaca ku gaarsiiyey. runtii inantii way murmadilaacaysa markii dhaawaca soo gaaray ay aragto, mana wanaagsana. runtii waalidku markii ay yaryar yihiin caruurta inta badan waa ilaaliyaan, balse had waalid waxaa jira aamaba ilmihiisa ogeyn halka uu ku maqan yahay. runtii ilmahan waa ilmahanad arkaysaan waa ilmo aad iyo aad u yaryar una baahan in xanaaneyntooda aad iyo aad loogu dadaalo. runtii iminka waad arkaysaa inantii geed bay ka gashay, inankii ayaa laga celcelinayaa oo inantii ka weynad ayaa ka celinaysa oo leh war ka joog inanta iska daa. runtii iminka way soo carartay xaafadeeda cafiisan way soo laabatay. iminka waxay usii cararaysaa gurigii inanka u degnay lafirkiiba. marka runtii waalidku inta badan maba eegaanba caruurtooda xaguu ku maqan yahay xaguu iminka joogaa. runtii inanka markuu intaa da-day uu ka jiro waxaa haboon in inanka runtii la ilaaliyo oo wax laga qabto wuxuu sameynaya. hadduu wax xun ku dhaqaaqayo runtii waa in laga celiyaa, hadduu wax wanaagsan ku dhaqaaqayo in lagu dhiirigeliya. runtii iminka wuxuu u baahan yahay xilligii wuxuu ku jiraa isaga uu ciyaarta badneed oo waxaan uu sameynayo waxay la tahay wax yaroo fudud laakiin balse waxay geysan doonaan mooga. runtii iminka inantii kaweyne ayuu iska fujinayaa oo la dagaalamaya, mana ogola. runtii inantii kaweyne way xambaartay ayadana way qaaday, balse ma yeelaya. horta hore isagii ayaa iska fujinaya marna kolba meel u cararaya. marka waxaa haboon runtii in waalidku uu ku dadaalo. runtii inantaa yar waxba ma sameyn karto oo iminka haddii qaado xataa ma yeelso, waayo iminka wuxuuba qaadaya dhagax ka weyn isagaba aababa isku miisaan. haddii la eego miisaanka dhagaxaas iyo miisaankiisa in ayaba kala badan yihiin. runtii isaga iyo miisaan badan balse dhagaxa kama yarayso, waa dhagax aad iyo aad u weyn. marka runtii waxaan jecelahay intaa fideogeyga waxaan aad iyo aad inamada ugu soo duubay runtii si ay ugu cimri qaataan inamada yaryare iminka dadku ilmahooda ay daawadeen fideoyinka qaarkood oo naxtin jira. iminka video kolley wax dhaawac lisma gaarsiina, balse runtii waa inama yaryar oo siidaya. waxaana jeclaystay inaan kolley usoo gudbiyo ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan. videogan aad arkaysaa iminka waali waxaa soo baxay inanka yar hooyadiis. runtii way u yeeraysaa wuu ka cararaya, balse iminka ayuu arkay hooyadii uu soo cararay gurigii ayay ku seexanaysaa. runtii aad iyo aad markay maqashay ayaa iminka soo kacda qayladii iyo caruurtii iskiisa. runtii waa mahadsantiin daawadayaal meel walbaad joogtaan. daawadayaal fiidiyooga yar aad daawanaysaa runtii waa caruur yaryar oo isasiidaya. runtii caruurtu markii ay yaryar yihiin ayay waxay isgaarsiiyaan dhaawacyo aad iyo aad u halis ah. runtii